بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر بالعالمين شركة جرائد كوما سابسنو سياسو كوما سابسنو وحكو سابسني هاي إكرام تهليل غيري ديري عن أهل ديري iyo qaraabadii ummadda Soomaaliyeed uga taxsiiyaha Ikraan Tahliil waan kala qayb qaadanaynaa qaraabada iyo ahlada iyo dadka muslimiinta ah tiiraanyada aan la qaybsanaynaa waxaan leeyahay Allah u naxariisto waa runtii geerida la sheegay geeri oo dhanba idan dadku jecelayn laakiin intii nafle inay dhimayso iyo xaq tahay oo la ogyahay haddana si dadkii ilaali lahaay ayay sababsatay haleenay Allah u naxariisto sabar iyo iimaan Allah ka siiyo walaalaheed iyo waalidiintiiri iyo dadka ahlada sabar iyo iimaan Allah ka siiyo intaas ka bacdi waxaan maqlay deegaanka beledweyne in shalay shaqaaqooyin ka dhaceen amba dad lagu afduubay lala xiriirinayo arintaas runtii ma wanaagsano gabar aqoon-yahanada wax baratay xilligii lagu nacfilahay joogto ayaa si wuxuushnimo ayaa cadow gacantii u gashay loona dilay in handana dad dhalinyaro amba dad birmagayda wax loo gaarsiiyo ma fiicno waxaan kala hadlaa dadka ehelada ee Ikraan Tahliil eheladeeda inaan hadda dhib dhacay dhibkii dhacay soo naqan maayo laakiin inaan dambilihi raadkiisa la duugin oo la daba kaco dawladdu daba kacdo gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arintaas asu talaab ka qaado anaga hebel heblana malihin dalka cidda xilku ka saaran yahay waa ra'iisul wasaaraha hortiina wuxuu ma dhicin asugu hadda asugu fadha kursiga ayay wuxuu dhaceen sigaal laga rabaa baaritaanka kooba inuu dadka u horkaco cidoo waxa ku tuhmaan uu soo qabto ama maxkamad loo geeyo taas ra'iisul wasaarada aan kula dardaarmo dadka kale ee qabiilka ee Ikraan ahaladeeriyo Ikraan soo naqan mayso hadii geeriyootay sida la sheegay sax tahay ma soo naqanayso laakiin inaan dhibaato kale dad kale dhalinyaro ee birmagayda oo wax galabsan in loo dhibaateeyo ayaa taas si daran waxaan ka digaa marka arintaas shala dhacday dadka la xirana in la siideeyaan codsanaynaa talaab kale aan la qaadin talaabti la qaadayo in dambilihi dacwo lagu soo oogo oo ra'iisul wasaaraha loo daba fadhiisto asiga amniga xukuumadda dalka asiga hadda hogaamiye ra'iisul wasaaraha la weydiiyo arintaas aan ku baaqaa waxaan leeyahay dadka ahlada oo qaraabada nahay gaar ahaan beesha gaal jecel waxaan ka codsanaynaa inay fidna kale iyaan si abuurin raadkana si kale sidaas si aan ahayn si dawladnimo loo raadiyo oo raadkina la baabiin umada kale naan lagu dhibaatay annaga hadda dad ixiga dawladda ku jira haday si dawladnimo wax ku haleeyaan oo xidgudub dadka kula sameeyaan ma jecli aniga in qabiilkii idoo laygo ninka waxa leeyay lay xijinayo in lay dhibaateeyo amba dadkayga loo dhibaateeyo marka Ikraan Tahliil beesheera waxaan ka codsanaynaa inay gabadha raadkeedina la duugin dad kale oo masaakiinana ayaan loo qoonsan noloshiisa lagu dhibaateyn deegaanadooda iyo dalkooda dadku waa ahl waa deris waa dhareer wadaag waxaan codsanaynaa marka arintaas wixii dhacana in la xalliyo wax damboona laga foojignaado raadka Ikraanna si sharciyan ah lagu raadi karaa si qabiilnimo walaxay dhumeey inaan si qabiilnimo loo wajihin sidaasaan ka codsanaa beesha gaal jecel oo Ikraan xigtadeeri waa wadanahay dhareer wadaageeri hoosa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنتاس إن يدبوا صور نقلنا ورجينا دتك حرنا إن لسوداي وما سنتي.